Xogayaha warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid mudane Yuusuf Kayse Cabdulaahi oo ku dhawaad 300 oo naafo ah oo u badnaa hooyooyin kala qayb galay maalinta xuska naafada adduunka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay qiimaha ay bulshada dhexdeeda ku leeyihiin dadka jilicsan ee aanu laxaadkoodu dhammayska tirnayn. waxaanu wax laga xumaada ku tilmaamay in gebi ahaanba mas-uuliyiintii xukuumaddu aanay qayb ka ahayn xuska maalintan isla markaana aanay kasoo qayb gelin madashani. Yuusuf Kayse Cabdulaahi ayaa sidoo kale waxa uu hambalyo u diray kooxda maqalka naafada ka ah ee gobolka Awdal oo guul ka soo hooyay dhigooda dalka Jabuuti, waxaanu ugu baaqay ganacsatada iyo wasaaradda ciyaaraha in la dhiirigeliyo oo la maamuuso dhalinyarta guusha u soo hooyay qaranka Somaliland isla markaana loo diyaar garoobo soo dhaweyntooda. maadaama maanta ay tahay maalintii naafada adduunka waxaan leeyahay hambalyo ma fiicna in maalin kaliya laydinku koobo. waxay ahayd in maalin walba aad lahaataan sida adduunyada kale. dal marka la doonayo horumarkiisa waxa laga eegaa bulshadooda waxa laga eegaa sida matalan dalada naafada, ururada naafada siday u horumariyaan kaabayaasha bulsho sida dhismayaasha kale in access ay u leeyihiin inay maaragtay geli karaan oo baaskiilkiisa isagoo wheelchairkiisa wata ama baaskiilkiisa oo ciduu doono la kulmi karo, wasiirku doono la kulmi karo, ganacsaduhu doono la kulmi karo. ururkan aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo xuska xusaysaan maalinta naafada adduunka oo adduunyadu maanta ay nagala mid tahay. maanta oo kale waxay ahayd in la idin dhiiri geliyo in golihii wasiirada iyo mas'uuliyiintii qaranku halkan fadhiyaan idin waramaan idin sheekeeyaan waxay idin hayaan ay idin sheegaan. hadday wasaaradda waxbarashada tahay, hadday caafimaadka tahay, hadday tahay arrimaha bulshada iyo madaxda kale qarankaba. inankaasi gabaygii uu halkan ka jeediyay aad buu ii taabtay. waxa weeye wuxuu yiri guryahan dhex fadhinaa oo dhex yuururnaa inagoo 30 sano dawlad ah 30 sanood baynu dawladnahay. maanta may ahayn inaynu halkaa taagnaana ma ahayn. hadday waxbarashada tahay, hadday caafimaadka tahay, hadday arrimaha kale bulshada tahay waxay ahayd inay ka dhex muuqdaan. iska daa dhismayaasheenii baan wacyigelin baan baarlamaanku xeerar u sahlaya inay maaragtay bulshada ka mid yihiin, inay kaabadaha laga baabiyo, inay access u leeyihiin, inay dhaqaatiirta tagi karaan, inay fooqaqa kori karaan iyagoo wheelchair ka wadata. waxay inay soo saaraan xeerar lagu mamnuucayo. annaga oo cudahan labada gudoomiye ee kale xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiyaba labadoodaba kulmiye iyo wadaniba wheelchair ka gudoomiyahooda xafiiskiisa looguma gali karo. labaduba fooq way ku jiraan, laakiin gudoomiyaha uu cid isagoo wheelchairkiisa wata xafiiska iyaga waa aragteen oo waa timaadeen isagoo wheelchairkiisa wata gudoomiyaha xisbigiisa loogu galaa. taasina waxa weeye waa fahamka iyo naxariista uu gudoomiyaha uu cid ka naxariis badan yahay labada gudoomiye kale. hay'ad abilis la yiraahdo dalka keenay oo ururada u shaqeysa uu ka naxariis badan yahay, uu ka fahamsan yahay oo nin bulshada de la soo dhaqmayo ma garanaysaa de joogay oo adduunyadu sida u dhaqanta de garanaya. bulshadeena Somaliland ma nihin bulsho kala soocan ma nihin. waxay ahayd maanta wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda arrimaha bulshada dhammaantood inay halka fadhiyaan oo waxay inoo qabanayaan
oo maanta farxadayda la wadaagaan maalin kaliya sanadka la soo saaraa waa maalinta waa 3 December oo qaramada midoobe goysay 29kii oo ay tiri maalintaas waxay gaar u noqonaysaa bulshada maanta ma yahayn sanadkiiba maalin bay heedeen inaga maqnaadaan ma yahayn aad baan uga xumahay waana faham la'aanta bulshadeena waxaan maanta sidoo kale hambalyo u dirayaa kooxda maqalka naafada ka ah ee u dhashay Somaliland gaar ahaan ka soo jeeda gobolka Awdal oo guul taariikhiya ka soo hooyay dalka aynu jaarka nahay ee Djibouti iyagoo kubad ay la ciyaarayeen 7 gool dhigooda kaga badiyay Djibouti kooxdaana waxaan leeyahay hambaliyo magaca qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ba kor u qaadeen magaca shacbigeena kor u qaadeen waxaan leeyahay hambaliyo baan idin leeyahay shirkadaha waxaan ugu baaqayaa waar kuwii fayoobaaye indhaha iyo gacmaha iyo wax walba qabay weydii kan u tartamaya ee gawaadhida siinaya ee wax walba siinaya nimankaasi waxay u baahan yihiin inaynu madaxa ku qaadano in si qaran loo soo dhaweeyo markay dalka yimaadaan in la maamuuso waayo magaceeni bay kor u qaadeen sharaftii Somaliland bay kor u qaadeen sharaftii Somaliland lahayd mar haday Djibouti ka badiyeen oo dal la ictiraafsan yahay waxa weeye kor bay magaca qaranka soo qaadeen waxaanan qabaa bulshada cid kasta oo sidaa ay magaceena kor u qaadeen inay bulshada noocyada kala duwan ee naafadu tahay mid walibana ay maaragtay magaca qaranka kor u qaadi lahayd hadii la dhiiri geliyo waxa laga yaabaa wasaaradda imika kaba soo qaad wasaaradda ciyaaraha way la yaabaysaa hadii la yiraahdo koox maqalka naafada ka abaa koob ka soo qaaday Djibouti oo ka badiyay Djibouti way la yaabaysaa baan ugu aaminsanahay waayo qorshahaba uguma jirto in dad maqalka naafada ka aha ma dhalin ay ciyaari karaan oo ay magaca qaranka kor u soo qaadi karaan imika Djibouti way ka badiyeen Djibouti weligeed waa markii koowaad Somaliland ee inta koox Somaliland duusho oo wadan jaara oo waliba la ictiraafsan yahay tagta ka soo badiya waa markii koowaad kuwayaga fayoobe caadiga ah weligeed ma soo badin marka waxaan leeyahay kooxda Somaliland magaceeda kor soo qaaday la soo dhaweeyo shirkadahan Britain-ka ku jirana waxaan leeyahay war kuwaasa gawaadhi u baahan kuwaasa u baahan inaynu gacan qabanno kuwaasa u baahan inaynu wax barno kuwaasa u baahan inaynu horumar gaarsiino hal gacan qabtaan leeyahay xukuumad iyo shacab iyo ganacsatada aynu kacno dadkeena aynu wax u qabanna baan leenahay dadkeena aynu wax u tarno anagu mucaarad baan nahay oo annaga awoodeedu waa inaan xukuumadda taladii dalka ma hayno hadii talada dalka Ilaahay gacanta noo soo galiyo insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynayaa ina maaragtay bulshada dabaqada ugu wanaagsan noqon doontaan hadii Ilaahay dhaho dabaqada ugu wanaagsan ina noqon doontaan tina xogayaha warfaafinta ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ceeday Yuusuf Kayse Cabdilaahi waxa uu fariin u diray komishinka doorashooyinka qaranka oo ugu baaqay inaanay hilmaamin doorkii ay naafadu ku lahayd bulshada isla markaana mudnaanta la siiyo sidii loo diiwaangelin lahaa waxa kale oo komishinka ugu baaqaya komishinka doorashooyinka waxaan ugu baaqaya diiwaangelintii baa socota dadkan dastuurka xaq u siiyay inay waxna codeeyaan iyagana la doorto waxna doortaan komishinka waxaan leeyahay guriyaha loogu tago baabuur u dira ururadooda kala xidhiidha soo saara dadka hayst diiwaangeliyaan qofkay doonayaan ha u codeeyaan waxaan leeyahay wacyigelin baa bixisaan wacyigelinta qaybtooda siiya iyagu hay soo wacyigeliyaan oo ka maqalka naafada ka ahi ha u sheego bulshadiisa qaybtiisa inay maaragtay maalintii wacyigelinta tahay in la isdiiwaangelinayo in doorashadii socoto hadduu ku baraarugo maalinta la isdooranayo oo bulshada socoto uu ku baraarugo oo uu yiraahdo dadkan xagga ku socdaan oo la yiraahdo waxbay dooranayaan waxa weeye cuqdad baynu ku beernay dadkeenni xaq bay loo yeena dastuurka damaanad qaaday